عفوك إني للنور مدت يداي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلوى صاحب يال مقعي وعمر محمد علي. هل كان وكلمية برايفت مرولي بات كلا سعطان لغة إنجليشتا عشرة. هذا أن صاحب يال مانتا ومالين جمعة إن شاء الله. صاحب يال waxaad ku soo dhawaataan page-ka aan ku leenahay YouTube-ka ee kulmiye private school. haddii ay tahay waqtigaadii ugu horeeyay ee aadna aragto waxaan filayaa in aad saaratay subscribe-ta maadaama ay tahay subscribe waxa kaliya ee aniga iyo adigaba isugu xira mar walibana aad aragto casharo waliba aan soo dhigo insha Allah. haddii uusan subscribe ku ahayn page-keena fadlan subscribe dheh. haddaba cashirka maanta waxaynu ku ambaqaadi doonaa ama aad ku baran doontaan waxa la yiraahdo the importance of money. hadaba waa ciwaanka cashirka maanta aan qadan doono. the importance of money, muhiimadda ay leedahay lacagta ayaynu qaadanaynaa insha Allah. haddii aad raadinaysay ama aad sugaysay cashar noocan oo kale ah inaan mar uun soo gudbiyo fadlan like-ta aan ka dareemo cashirkan wixii comment ana hoos iigu reeb insha Allah. soo dhawaada saaxiibayaal. waa tahay haddaba bilowga casharkeena ama ciwaanka casharka ayaa wuxuu yahay sida markii hore baan kugu soo sheegay waxa la yiraahdo the importance of money. waa muhiimadda ay leedahay lacagta. inaad lacag haysato muhiimadda ay leedahay waan arki doonaa. sidoo kale muhiimadda aysan lahayn waan arki doonaa. inay muhiim tahay iyo inaysan muhiim ahayn ba casharka ayaad ku arki doontaan. aan bilowno fadlan ila soo adiguna. money lacagtu is necessary for waa lagama maarmaan. is necessary for waa lagama maarmaan. but balse not for all dhammaan lagama maarmaan uma ahan the purposes ujeedooyinka in life ee nolosha aan ka leenahay oo idil lagama maarmaan uma ahan. lacagta maadaama ay tahay lagama maarmaan laakiin dhammaan waxyaabaha nolosheena aan ugu baahannahay ama ujeedooyinkeena haddaba lagama maarmaan kaliya kuwa uma ahan. aan ku celiyo money lacagtu is necessary waa lagama maarmaan. is necessary for waa lagama maarmaan. but balse not for all ma aha dhammaan oo dhammaan lagama maarmaan uma ahan the purposes ujeedooyinka in life ee nolosha aan uga leenahay. money lacagtu is not a thing ma ahan wax ama shay that can make us happy taas oo naga dhigi karto kuwa faraxsan. okay money lacagtu is not ma ahan a thing shay ama wax ma ahan that can make us happy taas oo naga faraxsiin karta maba ahanba shay naga faraxin kara ma ahan lacagtu. but balse we feel waxaanu ku dareennaa markaan lacag haysano waxaan dareennaa secure amaan safe nabad and calm iyo degenaansho ayaynu dareennaa when we have money markaan lacag haysano. we can't ignore ama we can't ignore mid ugu dhawaaq we can't ignore waa dhihi kartaa ama we can't ignore. haddaba iskama indhatiri karno okay indhaha kama leexin karno ama we can't ignore waxaan dhihi karnaa iskama indhatiri karno the importance of money lacagta muhiimadda ay u leedahay in our life nolosheena. we can't ignore iskamaan indhatiri karno the importance of muhiimadda ay leedahay money lacagta muhiimadda ay u leedahay in our life nolosheena. money lacagtu can buy position okay waxaad ku iibsan kartaa meel ama boos baad ku iibsan kartaa lacagta. but balse not respect kuma iibsan kartid xishmad. xishmad kuma iibsan kartid dadka inay dadka ku xishmeyn kara Soomaan markaad dadka xishmeeyso ama aad xishmeeyso ayay ku xishmeynayaan. laakiin lacag inaad si dadka xishmeey ma dhaha kartaa waa may. marka waxaan dhihi karnaa money lacagtu can buy waxaa ku iibsan kartaa position lacag waxaa ku iibsan kartaa boss ama meel. but balse not respect xishmad kuma iibsan kartid. money lacagtu can buy waxaad ku iibsan kartaa blood dhiig waad ku soo iibsan kartaa. but balse not life nolol kuma iibsan karto. okay haddii nolosha ama qof dhintay oo kale hadda nolol u siiraadayna ka hor nolol soo gala nafa soo gala
taasi marka macquul ma ahan markaas lama sameyn karo lacag waliba hadaad haysato ilaahay lacag waliba dollar ka badan waxaad haysato hayso wax naf ma helaysid illa laakiin dhiig waad ku iibsan kartaa money lacagtu can buy waxaad ku iibsan kartaa medicine daabo waad ku iibsan kartaa kaniiniya sharabo wax walba daaba waad ku iibsan kartaa lacagta balse not health caafimaad kuma iibsan kartid adigoo xanuunsan waxaad dad ka waran caafimaad halay soo gado marka taas macquul ma ahan caafimaadka ilaahay baa bixiya ee lacag laguma helo money lacagtu can buy waxaad ku iibsan kartaa sex waa maxay jinsi ama naag ayaad ku iibsan kartaa iyada okay oo ah in waxa weeyaan sex markuu dhawa jinsi hada sex looma qaato marka money lacagtu can buy waxa ku iibsan kartaa sex oo ah lamaane ama jinsi balse not love jacayl kuma iibsan kartid inaad lacag ku siina jeclow marka ma soconayso marka money lacagtu can buy waxaad ku iibsan kartaa a book baad ku iibsan kartaa lacagta book aad wax ku qorto aad wax ku barato waad ku soo iibsan kartaa suuq inaad tagto balse not knowledge aqoon kuma soo iibsan kartid aqoon ka maqan ayaa lacagan dhiiba aqoonta la igu shubo ma dhihi kartid illa iskuul aad u fadhiisato jaamacad aad soo gasho aad marka aqoontaas aad soo barato okay money lacagtu can buy waxaad ku iibsan kartaa a bed sariir baad ku soo iibsan kartaa lacagta money lacagtu can buy waxaad ku soo iibsan kartaa a bed sariir aad ku seexato aad ku hurdo waad ku soo iibsan kartaa balse not sleep laakiin hurdo ma soo iibsan kartid haday hurdadu ka tagto oo hurdo ka maqan tahay aad ilaahay subhanahu wa ta'ala hurdadii ka qaaday aad marka in lacag dhiibto hurdo halay soo iibiyo ma dhihi kartid ilaa hurdaduna ilaahay baa bixiya money lacagtu can buy waxaad ku soo iibsan kartaa a clock saacad aad xirato oo gacanta aad ku xirato waad ku soo iibsan kartaa saacad balse not time waqti kuma iibsan kartid marka okay not time waqti kuma iibsan kartid hada waqtigii hada fiiri adiga qof waxa tahay subaxii mashquulsan galabtii mashquulsan xilli walba mashquulsan hadana waxaad doonaysaa inaad wax barato marka xilligaad wax baran lahayd waxay ku soo aadi kartaa ama inay subax ahaato ama galab marka subaxiina waa mashquul baa tahay miyaad leedahay marka subax marabo waqti kale aan soo iibsanaa oo aan wax ku barto ma leedahay maya waqti lama soo iibsan kar laakiin saacadii gacantaada ku soo xiran kartaa oo soo iibsan kartaa money lacagtu is important waa muhiim oo ay muhiim u tahay for your daily living nolol maalmeedkaada ay muhiim u tahay money lacagtu is important for your waxay markaasi muhiim u tahay for your daily living nolol maalmeedkaada ay muhiim u tahay such as sida food cunto inaad ku soo iibsato lacagta water inaad ku soo gadato lacagta and shelter inaad hoy ama meel aad seexato aad markaasi aad ku iibsato ayay dhici kartaa lacagtu okay money lacagtu is important for your relationships waxay muhiim u tahay hadana xiriirkaada inaad dadka la xiriirto ama xiriir jecel ku jiraato xitaa lacag baa laga rabaa sidaa bay dhaha marka waa dadka waxay u bixiyeen daanyarada oo kale marka money lacagtu is important waxay muhiim u tahay for your relationships marka waa inaad xiriirka jecelkaaga xitaa marka ku jirto waxa weeyaan dadka waxay si dhaahada daanyar u noqo oo kale waad maqashay hebel daanyar u yaan marka sidaa oo kale iyaduna way jirtaa ay ka qaadanayaan lacagta money lacagtu is important for you waxay muhiim kuugu tahay adiga is important for you waxay lacagtu muhiim adiga kuugu tahay to fit properly si aad ugu habboonaato marka in your plans qorshayaashaada si ay u habboonaadaan lacag baad u baahan tahay ogow money lacagtu is important waxay muhiim u tahay for your self esteem isku kalsoonaanta naftaada ayay muhiim u tahay money lacagtu is important waxay muhiim u tahay for your self esteem kalsoonida naftaada ama isku kalsoonaanta naftaada ayay muhiim u tahay money lacagtu is important waxay muhiim u tahay for your spouse's self esteem isku kalsoonaanta xaaskana muhiim bay u tahay xaaskaada inay isu kalsoonaato ay muhiim u tahay lacagtu so saad raadid marka you see waad aragtaa
money lacagtu is not ma ahan everything wax kasta ma aha lacagtu wax kasta ma ahan but balse it is indispensable waa lama huraan it is indispensable waa lama huraan mararka qaarna waxyaabaha fara badan aad ku iibsanayso haddana waa laga maarmaan laakiin wax fara badan oo iyadu waxay tahayna maba jirtaba marka saaxiibayaal halkaasaan idinku soo afmeeraya casharka maanta insha Allah waxaan halkan ka salaamayaa dadka aadka u jecel lacagta waxaan leeyahay Allah ha idin saqro inta aad doonaysaan oo lacag ah taasina waa iska kaftan insha Allah waxaan filayaa inaad like saartay muuqaalkan wixii comment ana fadlan hoose igu reeb saan u eego insha Allah